waxyaabo ay qasab tahay inaad ogaato sanadkan 2023 si aad u noqoto qof fahamsan nolosha. Baro farsamo iyo aqoon cusub. Dunidu waxay u sii saqaysaa dhinaca aqoonta iyo farsamada. Waa muhiim inaad barato farsamo aad kula tartami karto dadka kale si aad u noqoto qof isku filan. Samayso saaxiibo wanaagsan oo aad wada gashaan safar nololeed oo meel wanaagsan idin geeya. Waa muhiim inaad hesho saaxiibo ku habboon waqtigaaga, waayo waxay kuu sahli doonaan inaad isbeddel wanaagsan samayso kuna samayso noloshaada. Kordhi dhaqaalahaaga. Samee wax kasta oo kuu sahli kara inaad samayso dhaqaale xalaal ah si aad u noqoto xor. Waa inaad yeelato dhaqaale kaasoo gala meelo kala duwan. Iska ilaali inaad dhaqaale ka raadiso meel kasta oo aan ku habboonayn nolosha adduunyo iyo midda aakhiro. Noqo xalaal maal ama xalaal meerte. Wax akhriska ku dadaal. Waxaa la ogaaday inuu wax akhrisku yahay sirta baraarugga iyo isbeddelka. Waayo waxaad baranaysaa dad ay adag tahay inay dunida mar labaad soo maraan. Akhri oo baro dhaqamadii wanaagsan ee Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo sidoo kale qisooyinka marla aragta ah ee soo maray dunida. Dadka la sameeya xiriir wanaagsan. Qof kasta oo aad la kulanto ula dhaqan si wanaagsan oo marnaba ha noqon mid aragtidiisa laga naxo. Dadka ma wada raali geli kartid ee ku dadaal inaad wanaajiso dadka aad la kulanto.